بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، sida caadiga ah webka aan ka baranayno ayaan sheega maaragtay youtube-kayga iyo maaragtay waa madinaarabic.com. youtube-kayga waa luga yar one. facebook waxa way maaragtay tafsiirka quraanka, qolka quraankana waad iga helaysaa maaragtay oo adminkan ka mid ahay. Anyway, casharkeena maanta waxaan joognay lesson 4 numberka afraad. weli afraadkii baan maaragtay idinla joogaa qaybta hoose. tamriinkaana idinla exercisekanaan maaragtay ku sameynaynaa. wuxuu cashir ka kooban yahay oo ah ayna, maada, a iyo man. Okay, klika ku sameynaynaa asagaa ku akhrinayo maaragtay webkan. أين المفتاح؟ أين المفتاح؟ مفتاحي أوي. Where is the key؟ أوي مفتاحي. Okay. Or maybe from north maaragtay waqooyi dee مفتاحي may, yeah, something like that, another language. Sorry, I don't mean to make it fun of it. And I'm maaragtay cayar ka dhiga maaha, laakiin just lahjad kalan raadinaya. Okay. haddaan afbay dhabood koro oo ku sheegi lahaa. Anyway, ماذا على الكتاب؟ كتابك maxaa kor saaran? Okay. What is on the book? النظارة أنا قلت نظارة شمسية. أوكيالك sunglass. Anyway, أوكيالك أما نظارة. Okay. Somali baba maaragtay raadinaya maaragtay. أمفتاح على الكتاب؟ مفتاح على الكتاب. ما مفتاح ما فرع هذا كتابك كركيسة ما فرع صارن. كتابك كركيسة ما فرع صارن. اوكي. على ودش كرك صارن. سيدي ماذا على الكتاب؟ كتابك ما كر صارن. أين المفتاح؟ مفتاحي آوي فري مي ما قرأتي. من في المطبخ؟ Who is in the kitchen؟ من في المطبخ؟ مطبخ يا كجرة في أحد كجرة إلا موت في المطبخ. أوكي. من حلو استعمالها وحن حيوانك أما وحن نولين لو ما استعماله وحن نول بالله استعمالها. من وهو يومن بني آدم ومارد. I think عشرك انت سمسوك وقبيننا waxaan ka fikiraa maaragtay number 3 qaybta hoos dhan waxaan idin dhahay maaragtay idinkaan idin dhaafay. habaynaad soo akhrisateen oo barateen. hadda ishida ku dhacdo maaragtay kale waxaa ku jiray kelimado cusub waxaan islahaa maaragtay inaa la dulmartay ahayd saas oo kale isweydiinayay. waxaan isku dayaa kadib inaan maaragtay waxaan idinla dulmari karaa idinla dulmaro insha allah. maanta gooskan iska soo saara markaas weli kabowyada halkaa iga jirta farurta dhinaceeda maaragtay
sababta idinku sheegaya waxa weeye haddii in case hadalkayga ay effect ku samayso ama saamayso inaad la socotaan maaragtay. That's all. Inshallah the job done. Inshallah intaasaan kusoo gabagabeynaa. Wabillahi tawfiiq. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.